waxaa jira dad badan oo aan wax weyn ugu fadhin naftaada, weliba aan kala jeclayn farxaddaada iyo murugadaada, halka sidoo kale ay jiraan dad muhiim u ah naftaada inay ugu jiraan si maalinle ah oo aad ka hesho mudnaan iyo kalgacayl joogto ah. waxayna kala yihiin qofka ixtiraama naftaada. dunida ma jirto wax lagu doorsado qofka ku ixtiraama kuuna qira qiimahaaga. ixtiraamkuna waa ficilka ugu wanaagsan uguna saamaynta badan ee qof uu u sameeyo naftaada, waqtigaaga iyo farxadgelintaada. waxaa mudan dadka kaa soo dhowaysta dadka kale oo ah dadka ku ixtiraamo kuuna muujiya qiimaha aad leedahay. marna ha iska dayicin qofka ku siiya qadarin iyo qiimayn, kaana dhiga qof agtiisa aad ku weyn tahay mar walba, kaasoo aan kugu nicin xaaladahaaga dabiiciga ah ee ku soo mara marmarka qaar. qofka u naxariista naftaada. qofka aad agtiisa ku dareento naxariis iyo damqasho wuu kaaga duwan yahay dadka kale oo dhan, waayo wuxuu boos weyn ku yeeshaa qalbigaaga. naxariistuna waxay ka timaadaa qalbiyada nadiifka ah oo aan aqoon cuqdadda iyo argudashada. sidoo kale naxariistu waa luqad uu fahmi kara dhagoolka, uuna arki karo indhoolaha. sidaasi darteed marna ha iska dayicin qofka u naxariista naftaada xaalad kastoo aad ku sugan tahay. qofka naftaada u jeclaada si shuruud la'aan ah. jacaylka shuruud la'aanta ah ma ahan dareen laga wada helo dadka oo dhan, balse waa dareen u gaar ah dad kooban oo aan badnayn. sababtuna waxay tahay qofka qof u jeclaada si shuruud la'aan ah waxay ka dhigan tahay waxaan aqbalay dabeecaddaada iyo qaabkaaga. waxaan ku siinayaa jacayl si kastoo aad iila dhaqanto. waxaan cafinayaa qalad kasta oo aad ka gasho naftayda. waxaan samaynayaa nafhurnimo si aan adiga kuu raaligeliyo kuuna qanciyo inta aan awoodo. waxaan ahaanayaa qofku jecel xitaa haddii adigu aad igu noqoto qof aan isiin jacaylkii aan ka mudnaa. qofna kulama barbardhigayo oo ma dhaawacayo qalbigaaga. waan ku ixtiraamayaa xitaa haddii aan ku suganahay xaalad adag. qofka naftaada u jeclaada si shuruud la'aan ah waa qofka ugu muhiimsan ee noloshaada, ee ha iska dayicin. ugu dambayn, naftaada marna ma mudna inaad hoos geyso qof aan ixtiraamin, u naxariisan, sidoo kale aan u hibeyn jacayl shuruud la'aan ah. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.